oo ahaa nooca gawaarida lagu xiro ayaana la ogeyn qofka saarnaa gaariga qarxay. markii uu qarax dhacay kadib waxa goobta soo gaaray ciidamada booliska Soomaaliya iyo shaqaalaha dabdamiska gobolka Banaadir kuwaasi oo daminayay dab uu dhaliyay gaarigii qarxay oo ku fiday gawaari hor socotay. gaariga qarxay ayaa booliska Soomaaliya wali waxa aysan shaacin qofka gaariga qaraxa loogu xiray iyo wuxuu uu ahaa. dad goobjoogayaal ah oo goobta ku sugnaa ayaana la hadlay waxayna inoo sheegeen waxyaabihii ay arkeen. oo qarxay aan soo dul istaagay gubanayo halka oo qarax ka dhacay waa lambar 4 khasaare nafeed oo hadda meesha wax ku soo gaaray dadka laba qofood waa ay leeyihiin qof waa dhintay qofna waa dhaawacmay ay leeyihiin laakiin aniga gaariga ma soo dul istaagin gaariga oo gubanaya ayaan imaaday ka bacdina waa ii suuragelin weysay inaan gaariga dadka ku dhex jiro aan arko laakiin waxaan hubaa inuu gaariga meesha oo ku qarxay meeshana dadka ay wax ku gaareen anindhaygu waxay qabteen gaariga oo gubanayo. qaraxani ayaa wuxuu ka dhacay isgoyska Taleex wuxuuna saameeyay isku socodka gaadiidka dadka ganacsiga iyo waliba shaqooyinkii ka socday wadadani. sidoo kale qaraxani ayaa wuxuu saameyn ballaaran u geystay gawaari hor socotay oo ay saarnaayeen dad shacab ah. Maryam Xuseen Jibriil, Som News TV, magaalada Muqdisho.